وبريو كلا لتوجنا قفل بغورد بويا صبحي صلاة اللحدي بان جرجيك كبحي وحن هذه تشالك جنرال إسماعيل أحمد إسماعيل حاسكي سائل السعوت وحار كالي إيجي حفيزكي سانفريس الدعاء له وحان إري هذا رب الكور النمك صانع ومضح وله حاسك ويا بنيا بركي أنت أسلوب تهددهم بوتير كجيناي وحيري نولا الشيدا ولما أن أرن بيري طبعا كادالين يارو يا إساك اللي تكتبه يردت لمن أول جاي ما نار ما حد داعي هذا وحيرت وديده وحي اللي سكدر درج هبين كيودن قران بآخرناين نول باسقو دجن وانا دالين يارو ما يوينين صدن حتى ما يجارن نول باسقو دجن بقران كيس آخر سنة دردارن أي وضع قران دردارن كيبوسو صاري ونو آخرناي هبل يهبل وحويري إن الله مع الصابرين متكل وحير حاسكي قف مهر كذي وإنت متكل أنا وحيري الذين يقاتلون في سبيل الله إلهي درتيس الشهداء لو دلو يعني وشهاد بوها إلهي درتيس لو دلو آية القرآن الوقف صديها لو دلو مكته الذين يقاتلون في سبيل الله وهذا هذا هنقرنا أنا to be honest أنت مركو وذي وبعد مقالدي وحكير الدوق ونقول قد لما قال لبد يارو لبد اللي يرد وضعان أو ميليتريا يا مركي دولاين أي كلا اللي حناين يا لبد يدبوا الدم بسكوت بفتين لو فشدي هرت مقالد الدم با قريرتي قودي كد عدي إن أنا وحو كد عي حافتي وبريو تقانوعان شن يتبون قريو اللي هردوه أي مرين إنك كلنا وزارة قاشان دقة أيوه كل عين كاقدر المرينة يعني أنكلا حسوس أنا كسي حسوسية حافظة أي كل عين ما أنت اللي دليل تذكر ولو داوشتك شو مين أنا كم إذا هاي واحد تجي قبته إسماعيل هو استاجي أنا قد نوّا استاجني أذكرته وعي محاد عي وعلي الديار دعي هل كيفان قاري كقاضنا ما كاجا شيكين كرو سيناري هميشة يالي ما بكاغا شيكين كر dad badan oo taqaanidna way ku dhinteen oo waxaan ka garnaa Ibrahim Dirir xaaskiisa iyo carruurtiisa aroortii horena dad waxay yireen aniga ma sheegi karo rob yar oo tiixtiix ayaa daay arintii markaa waxa lagu fasiray jawaabtii ugu horeysay Ilaahiga Raxmaanka inay dhacday waxaan ku sheegaa ducaalow markaa Ismaaciil markii aad u tagteen intii aan markii aad ololaha ka wadeen inaan la dilin cid walba waxay isku dayday anaga u rahweenahan aan ugu tagnay in laga badbaadiyo wala isugu tagay wala diiday jaamacadda carabtu way soo gashay dadka carabtu aanan galin malaha way soo gashay wala diiday wala diiday maxaa u sabab haba ya markaa la leeyahay waxa uu diiday ama cid uu maqli waa diin dhageysan waxa sabab u ahayd mainly sidee baa layga hor yimaadaa sidee baa dawladayda yani la saga ahaa imaamkii dhamaa sidee layga hor yimaadaa hadina way jirtay ducaalow waqtigana waa jiray laakiin waxaan ku sheegayaa inta dhaceysay culimadii Soomaaliyeed ee aqoonta lahaa shicibka Soomaaliya garanayay waxaan cidna ma hadal alla ilaahay waxaan xasuustaa hooyadii Allah u naxariistaa waxay tiraa na ilaahay nama simin naagaha fadhiiso ilaahay nama simin kasana maxaad ku hadlaysaa hooyo na ilaahay nama simin hooyo waxaan ka har arintii sidii bay ku dhacday ragii waa la togtay waxa nagu dhacay embarrassment shirkii New York markaan tagnay oo la yiri dawladda Soomaaliya human right ka ba haysato waxaan bilaabay aniga personally inaan maaragtay isdaafacno annaga ururkeena haweenka shaqo kuma laha ragaasna waxay ka hortageen 26 article adiga ceenka kamid baan ahayn wixii dhacay mas'uuliyadeeda ummadda Soomaaliyeed dhan baa mas'uulka waxa ka dhashay horta aniga Maryan ahaan laba bil kama dambeeyeen wadaadadii shaqadii weynadaan haay somehow adiga ama mucaaradnimo haata ama iska hor imaad dawladda ومحمد سيد الله أنك سجن حكومة بياروجا أديكو somehow إلهي معرفتي واسكهر إن معناي
maadaamaan dowladna ku jiray waa layga xishooday 4 darbiyo madaxweyne ku-xigeenka adigu gurigaygii baan ku laabtay adduunka cid aanan sanction nagu samaynin caalamul maxaa lahaa islaan ma jirin sharcigii qoyskana oo loo dhintay waa hirgeli waay magacyo badanaa loo yeelay cali xiliin baa loo yeelay dumar baa maxkamadaha la geeyay adigu ilaahay qudradiisa sharcigii meesha waa ka dhaqaaqi waay maalinta caradii rabbi sidaan aniga hadda taariikhda yacni u soo arkay caradii ilaahay ee kaga dhacday Soomaaliya ee qof islaan oo Soomaaliyeed daafici waay ayaa dhacday ducaalow maxaa kamid ah markiiba horta waxaa bilowday 1975 horta waxaa la ruqsay wax alaal wixii DG sheegto iyo safiiro oo administrationka civil service-ka koorkiisa ah intii ugu qiimaha badneed oo ugu cilmi badneed 5 agaasimayaal guud iyo mareeyaal yaa hal maalin laga taqalusay korneeladii waaweynada wadanka ruushka 1963 markay Soomaaliya ka carootay OAU foundationkeedii Ethiopia ayaa Soomaaliya galbeed leh oga caraato armamentkii aan galnay ay Soviet Union sponsor noo aheeday ayaa korneeladii iyo askartii la soo tababaray oo Afrika oo dhan aan ugu quwad weyneen ayagana waa laga taqalusay waxa loo diray meel la foof la yiraahdo iyo tacliin iyo kacan diidnimo ka soo maartay brain wash halkaas loo diray halkaas ka bilaabatay muddo dabadeed waxa dhacay xisbigii hanti wadaaga la sameeyay markii dambana waxa la istusaalay dawladda Soomaaliyeed in Ethiopia markuu Mengistu Haile Mariam ka dhacay maxay ahaydey Haile Salaas markuu dhacay oo inay yaro military qabsaday oo crisis galay dawladda Ethiopia ay gashay crisis inaan ka faa'iideysano janska watan la isku qaaday ruushkana raali kama ahayn adigu watan lagu baaba'ay wax ka soo harayna way yaraayeen aqoontii militariga ragii waday way ku dhamaadeen soo noqodkiina waxa dhalatay diidma dhalatay Hargeysa waxa lagu toogtay 6 maartay sarkaal diidma bilaabatay ragii kale xamar tagay waxay isku dayeen inqalaab diidma bilaabatay ayagana fagaara xamar baa lagu toogtay maxaad u maleysay 10 wadaad ya marka fidnadii soo bilaabantay 75 halkaas ka wada sidaan aniga aan interpretation ay igu la muuqato marka 79 maraysa iyo markii inqilaabkii xataa la isku dayay inqilaabkii la isku dayay 17 wiilo military ah geedka la saaray jabhadii soo dafbaab maartay abuurantay baraakadihii iyo bari iyo Puntland population koodii baa maartay la baabashay adigu disaster oo mid walba mid kale ka dambeeyo waxa ku xigtay markaa haddana silsiladii Somaliland Soomaaliya waqooyi in iyadana maartay dawladii daafici lahayd cadawga ka daafici lahayd inay magaalada shicibkii maartay ay ku garaacdo in the meantime aniga Maryan ahaan ilaahay hadaayad buu igu soo riday way adiga ku dhacday saam kale ku dhacday wadiga yiri shaqadii horta markii baan shaqadii waan ka fariistay adigu ilmo daldalo iyo maartay household baan noqday wadaadkii markii la xiray ayaan masaajid galay Sheekh Ali Suufi ka soo horjeeday odaygaagii waa la xiray madaxweyne ku xigeen oo isaga isku huriyay marka shicibkii baa noola keenay moogtahay maadaa markaa dabaqadii sare waana laga soo xisaabtaadii baad gelisay oo markaa baada isku diray maya adigu de asaga naftiisa diidmadow galay صح diidmadow galayo yani daacadnimadii iyo dawladii uu qabtay runtiina waan ku cambaareen jirnaa annaga dadka wixii ka dhacay golaha sare kacaanka member baa ka tahay haddii kale markaas diidi lahayd yani family ahaan annaga maaragtay isku tuuri jirnaa arrinka asagana diidmadii buu galay oo concern buu ka noqday aware wixii waqooyi iyo maartay iyo dagaaladii wixii ka dhacay adiga markii la xiray oo aniga shicibkii maartay noola keenay yaan tafsiir galay ma sha Allah masaajid Sheekh Nuur liiraado kaas populaar ducaalow hadii sheekadan dadka ma rumaysanaan markaas saa u fariistay dumarkii dugsiyada ka qaylin jiray oo yaryara alif wax ma la dhigi jireen kitaabadooda ay haystaan annagina lagu soo kori karabaatada iyo shaatiga cadiya maxaa baadir Talyaanina waxba ma naqaan
waxaana isku sheegaa marka inaan mutacalimada والمسلم لا ilaahay qudradiisa waxaa laga bilaabay الرجال قوامون على النساء سورة النساء ayaa laga bilaabay anoo sidaa u fadhiyo waxaa suuratu nisaa oo wax nisaa liiraha jira dee waa bad u jeedaa oo alrijaal qawaamuuna cala nisaa macnaheedu maxay tahay nimanka dumarka waa ka sareeyaan oo waaba aayad quraan oo ilaahay sheegay oh my god oo maxaa samaysan maaragtay taariikhda ya waxay ku dhacay shock oo run ah waxa igu dhacay laabteeda waxba ku dhacay oo yaani inaan crime weyn ka mid noqday anigu ma bilaabin waa ku jiray systemkii baan ku jiray madaxayna loo dilay rag xageen ka maqanahay laakiin anigu intention ayaga ma dilin quraankana ma aqoonin markaas inta gacanta taageer ilaahay oo maanta wixii ka dambeeyo 114 quraanka I take it waxaan u qaadanaa sida ay tahay xuduudka maartay dumarahan igeysano waan qaatay horta halkaasaan 3 sano maartay quraanka baranay marka niman badan oo diijiye iyo niman badan oo wadaadaha dhigan jireen marka masaajidka laga soo baxo yaa waxaan raadsan jiray dhowr odayo habeenkii tiyaatarka safnaa adeer oo idinka og ayda quraanka الرجال قوامون على النساء واي هذا قولاتين دولة الصومالي إنه wadaadid disho واي adeer suldaan jaahil ayuu ahaa laga ma hormaa ka soo hor ilmi yariira 10 kiiraba ka hortagtay ya if I had known hadan ogaan lahaa oo aan diinta marka ku jiro wallahi billahi waan gali lahaa aniga basa u garanayo aadii aan shalay soo bartay i dardartay idinko yaqaanay oo aweer ahaa aad u horseedeen inaad aamustaan marka horta inkaarta ugu weyn halkaas ka soo bilaabantay Soomaali waxa u bilaabmay dictatorship civil wars waxana nasiib darre qof gartay oo yiraahdo war maxaan halaynay xageena laga soo galay warba wadaadadii la toogtay toobadna suux way furanta anigu ilaahay waxaan weydiistay afis laakiin ilaahay agtaala haduu biri maartay ciqaab doona in kale laakiin waa inaad ogaataa wixii dhacay inuu qalad ahaa dagaal sokeeyaa dhacay muqdisho la isku baabiyay Soomaaliland baa goosatay waxa bilowday war lord 20 sano bal ilaa yoomana hada lama nasan magaalada xamar waad u socotaa extremism mardiini baa yimaday dawladii maartay la raadi in ay hantiso dawladnimadan waatan maartay wareerka adduunka ku jirto marka anigu waxaan aaminsanahay ummadda Soomaali maalinta kitaabka Ilaahay loo gafay ee aayada quraanka la bedelay inay maartay salka ku hayso wix allaale wixiina helay maxaa ma doonayeen sheeko kale ku geliyo Maryana sax way meel adag baad qabsatay waa sax marka markii hore taariikh baynu ka sheekay sax laakiin imika line gooniya yaad qaadatay oo runtii aan filayo dad badan oo ina daawanayaan inay ama marxatiga ku furi karaan sax ama ay wax cusub ku qaadan karaan in waxaan la garan laayahay iyo dhibaatadan dhacday ay ma garanaysaa tahay inkaar marka dhinac ka eegto lagu dhacday ama cala alla saatinaatay oo laga duceysto halka ku dhaafin maayee ugu dambeystii maxaad oran lahayd hal la yeelo imika Soomaali horta Soomaali way kala baxbaxday oo waad u jeedaa sida la isugu soo noqdane aad iyo aad bay u adagtaa ani waxaan aaminsanahay mar haddii inkaartayna ay ka bilaabatay diinta oo kitaabka Ilaahay loo gafay haddaan annaga Ilaahay toobadana suuxdaan qaadano waa in ummadda Soomaali ay kitaabka qaadataa dawlad islaam inaan iska dayno socialismada iyo maxay ahayd qonyar socod iyo muxuu ahay demokrasiyadan maartay dadkii ka dhigtay dhiirinaan qof walba maartay oo television-ka soo istaaga inta in laga tago the only thing oo wadankan ku qabooba waxa weeye gobol walbo ama maartay dawlad walbo inay kitaabka Ilaahay qaadato kitaabkan lagu dhaqo
marka aniga waxaan qabaa in la raadiyo diinta saxa ah oo sidii sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam noo faray inay ummadda Soomaaliya ku degi karto taana waxay ku degi kartaa markay Soomaaliya dhan inta istaaga yiraan ilaahu naga cafi diintii aan taabanay ilaahu naga cafi midda kale ilaah baa na faraabo haddaad madax tahay wadiicu Allah wadiicu rasuuluhu wa ulul amri minkum soo waxa gartama inaan islaamnimo ku dhaqanno صح ما inaan qaadano maxay ahaday western style okay fidnadan ad maanta barnaamij ka sheekaysay صح oo aad leedahay waxay ka soo bilaabantay marka culimada la leeyay صح haweenka daraadood bay ka bilaabantay I know ma laga yaabo maanta fidna kale inay noo bilaabanto oo haweenkiini qabyaaladna ay gaatay صح waxaad bilowdeen prime minister Ramadan iyo wasiir Ramadan iyo anaga kootada iyada halana siiyay inay cajaladii dib u soo noqonayso ma kuugu muuqataa oo halkaan wax kale ku jiraan maya laakiin waxaan ku oran karaa horta bini aadanka hadoona aqoonta diiniga lahayn wax walba baa ka tahay ducaalo anigu maalintan arinta falka aan ka ahay member historyga igama harayso anigu diin wax liraa ma ana aqoonin soo waxa ma aad u aqaanay western ka maartay arimooda laakiin marka diinta barato waxaad ogaanaysaa xuduudka Ilaahay ku istaajiyay sinaanta ma aha kaliya inaan rag daba orodno waa inaan marka hore kitaabka barana muxuu Ilaahay ii ogol yahay aamintu billaahi ayaan iri Soomaa de marka wax Ilaahay ka soo horjeedo miyaan wadi karaa waa maya although aan ogahay maanta 30 sano ugu dambeeyay ama 40 sano ugu dambeeyay ee burburkan dhacay hadaynu haweenka Soomaali ahayn ummadda Soomaali ma taagnaateen ma garatay waxa ordaa bread winner ah iyo waxa maartay shaqeyna ama waxa human rights ama civil society ka shaqeyna wado wixii caruurta hay gabdhihii Soomaaliya Yurub tagay ee la balan balaa caruurtii aabba la'aanta